nabi maxamed isagoo 62 sano jir ah ayaa waxaa u dhashay Ibraahim. aad ayuu ugu farxay dhalashada Ibraahim, xataa xaafadda Madiino guri guri asagoo u garaacayo ayuu wuxuu ku yiraahday qof walbaba ma ogideen miyaa in rasuulkiina wiil loo dhalay, ma ogideen miyaa inuu nabi maxamed wiil u dhashay. farxad darteeda xaafad guri guri ayuu u garaacay, xataa daal muusan dareemin. Ibraahim markuu sanad iyo bar uu gaaray, maalin maalmaha ka mid ah isagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam masaajidka ka soo baxay ayaa waxaa ka hor imaaday saxaabada mid ka mid ah. wuxuu ku yiraahday rasuulka ilaahay oo ka gaar, Ibraahim wuu sakaraadayay, wuu isku naxay rasuulka, wuu cararay, guriga ayuu galay, wuxuu arkay hooyadiisoo dhabta ay ku hayso, wuu ka qaaday, gacmihiisa ayuu ku ruux baxay. ilaan sakaraatul mawt ayaa saarnay, nafta inta ugu dambaysa ku jirtay. mar alaala markuu saan u qabtay, gacmihiisuu ku ruux baxay. wuu murugooda rasuulka sallallahu alayhi wasallam, wuu ooyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam, wuxuu yiraahday inna alqalba la yahzan wa inna al'ayna la tadma wa inna la firaqika ya Ibrahim لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. markaasuu dhaqay meedkii, wuu karfameeyey, wuu la daardaarmay isagoo leh Ibraahiimow, marka qabriga lagu geeyo waxaa kuu imaan doona 2 malig, waxay ku weydiin doonaan rabbigaaga, waxaad ku tiraahdaa rabbigay waa Allah. waxay ku weydiin doonaan nabigaaga, waxaad ku tiraahdaa nabigayga waa aabahay sallallahu alayhi wasallam. waxay ku weydiin doonaan diintaada, waxaad ku tiraahdaa diinteyda waa islaam. waxaa taagnaa markuu la daardaarmayay oo Cumar bin Khattab ayaa gadaashiisa taagnaay. wuxuu ku yiraahday rasuulka ilaahayow, wuu yar yahay cunugan, weli lama kalifine, maxaad ula daardaarmaysaa? wuxuu yiraahday rasuulka sallallahu alayhi wasallam wallahi waa la weydiinayaa. isagoo sidaa leh ayaa waxaa ku soo degatay aayadan يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. رسولك مروغا وما يرينين، هدنا وحو أها قفك إلهي وجعل يهي، هدنا وحو أها حبيب الله إلهي قاليه سو أها كسل يا رسولك.